Asalaamu calaykum walaalaha. Maanta waxaan idin wadaa mucjisadii gacanta. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Soo dhawow muuqaalkeena maanta. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay wiil dhalinyaro ah oo Ilaahay maskax iyo aqli siiyay. Waxyaabo uu sameynaya markaad aragto, waxaan u maleynayaa inaad la yaabi doonto sida aan aniga ula yaabay oo kale. Waxaan idin tusi doonaa waxyaabo badan uu gacantiisa ku sameeyay, taas oo ay ka dambaysa maskaxda saaran wiilkan dhalinyarada ah. Bal haddana ila daawada muuqaalkan koowaad. Xaafadaada ma kugu dhibay jiir ama doole sidaad u taqaano? waa shabaqa dooliga badankiin waa soo gediin lacag badan ay kaga baxdo aad iyo aad u fududahay sameynteeda waan idin faa'iideynaa laakiin videoga YouTube-ka suuqa haddii aad ka soo iibin jirtay waxyaabaha lagu qabta, wiilkan dhalinyarada wuxuu maskaxdiisa ka alifay wax lagu qabto dooligaas. Ama bal adiga muuqaalkan ila daaw, bal u fiirso wiilkan dhalinyarada qaabku u sameeyay dooliga. Sidaad arkayso bahashan wuu galayaa, waxaana meeshaas aad dabin ugu dhigaysaa waxyaabaha dooliga uu jecel yahay ama jiirka uu jecel yahay. Kadibna waxaad arkaysaa in dooliga uu bahashaas taabanayo. Haddii uu taabtana dooligaas shabaqa waa uu kusoo dhacay. Bal adiga ka waran bal maskaxda saaran wiilkan dhalinyarada ah. Haddii uu ka agdhow yahay ama dariskaaga uu yahay, uma baahnid inaad suuqa wax aad ka soo iibiso, maxaa yeelay waxaa kugu filan khibradda wiilkan yar ee dhalinyarada. Magaciisa waxaan jeclahay in la dhahaa Xakiimi. Bal haddana farsamada labaad. Tan waxa ay qusaysaa dadka muuqaalada duuba ama youtuberada ama qofka duubaya muuqaal TikTok ah. Waxa uu u baahan yahay qofkaas inuu leer uu soo iibsado. Haddaba wiilkan yar waxa uu ku leeyahay dhalinyarada markii aad videoga duubanayso aad isku daarayso kaas ku anfacaya waxaan ka sameeyay kartoon sida u jeedid kartoonkaas saas ay u jarnay saddexda geesa uma baahnid inaad soo iibsato leer, waxaad ku samaysan kartaa gacanta. Alada u fiirsa qaabka loo sameynayo leerka. Waa kana muuqaalka ila daawo. Aad arkaysa waxaa laga sameynayaa kartoon, kabacdina waxaa waraaqada looga dhajinayaa gudaha si iftiinka uu u noqdo iftiin heer sare. Uma baahnid inaad leer aad ka soo iibsato suuqa, waxaad ku samaysan kartaa gacantaada, waliba leer provision ah. Bal arag wiilkan yar maskaxda saaran, maasha Allah. Muuqaalka kale waxaad arkaysaa qofka haddii aad leer ka samaysatay, waxaad u baahan tahay haddii aad telefoon wax ku duubaysa wax aad saarato. Wiilkan yar waxa uu gacantiisa ku sameeyay tripod oo hand production ah, uu gacantiisa ku soo saaray. Bal la fiirso tripodkan qabku uu sameeyay. Waa tripod u shaqeynaya qaab casri ah. Haddii aad u baahan tahay muuqaalkan iyo sidoo uu sameeyay, waxa uu inoo sheegay inuu soo dhigay bartiisa YouTube-ka ee Xakiimi. Midana waxa ay qusaysaa dadka jecel inay game-ka dheelo. haddii xitaa aadan game dheelin qof weyn aad tahay ama marmarka qaar aad walaalaha ama caruurtaada waliba dhalinyarada, ama haddii aad tahay qof weyn oo teleefankaada aad u dhiibaysa ciyaalkaaga ama ilmaha yarka ee xaafadda jooga, waxaan jeclahay inay ku raaxaysan doonaan markii ay qalabkan ku dheelayaan. Qalabkan isagoo casri ah u jira, laakiin wiilkan dhalinyarada wuxuu ku sameynayaa gacantiisa iyadoo waliba aad iyo aad u macaan. Bal ila fiirso muuqaalka ilaa dhammaadka. Bal haddana muuqaalka kale. Muuqaalkan waxa uu saacideynayaa gabdhaha, ama haddii aad adiga laftinkaada qudaar aad jaranayso, qudaarta yaryarka sida uu sheegaya. Waa haddii aad u baahan tahay qudaar waaweyn, waxa uu yiri waxaad ka samaysan. maanta waxaan sameeyay mishin yar oo lagu jaro qudaarta. sambal yar ayaan ka sameeyay mishinka qudaarta sida basbaaska, waxyaabaha fudud. haddii aad qudaar aad jaranayso, qudaarta yaryarka sida uu sheegaya. Waa haddii aad u baahan tahay qudaar waaweyn, waxa uu yiri waxaad ka samayn kartaa weel weyn. Fiirso bal qaabka ay u jarjaraysa baashan uu gacantiisa ku sameeyay qudaar. wiilkaas arkaysta gacantiisa ku sameynaya waxyaabo aadan u maleynayn. Waran bal haddii la dhiirigeliyo oo waxyaabo qalab ah la siiyo, muxuu soo saari karaa. Muuqaalkeena aan kaga hadlayna maanta wiilkaas dhalinyarada intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.